halkani oo ah howlka dowladda hoose ee degmada Boorama subaxnimadii hore saaka waxa si rasmi ah uga furmay kala fadhigii labaad ee golaha deegaanka ee degmada Boorama. Kala fadhigan ayaa ahaa mid ay ka soo xaadireen mudanayaasha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ay weheliyaan mas'uuliyiinta kala duwan ee ugu sareysa agaasima waaxdada dowladda hoose ee degmada Boorama gudiyada afarta xaafadood ee magaalada Boorama. Kala fadhigan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa maanta si rasmi ah kala fadhigaasi u furay duqa degmada Boorama isla markaasina gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe. Muddada kulankan uu socon doona ayaa waxa si weyn loogu lafaguri doona arrimaha horumarinta degmada Boorama iyo sidoo kale dadgelinta hawlaha shaqo ee dowladda hoose ee degmada Boorama ay bixiso. Waxaana halkaasi si rasmi ah warbaahinta faahfaahin dheeraad uga warbixiyay kala fadhiga labaad ay maanta qabsadeen golaha deegaanka ee degmada Boorama duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe. Soo arintaasi faahfaahinayana waxa uu yiri sidaan horeba u sheegnay waxaynu doonaynaa in kala fadhigeennii labaad uu inoo furmo wuxuuna inoo socon doonaa muddo 3 cisho ah oo ka bilaabmaysa maanta berri iyo sahan dambe 3 cisho oo golaha deegaanka degmada Boorama oo haddii la hayra ajandayaasha hor yaalla uu kaga tashan doono. maanta waxaynu joognaa maalintii ugu horeysay waxay nagala soo qayb galay xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Boorama shantii agaasima waaxeed gudiyadii xaafadaha afarta xaafadood ee magaalada Boorama saxaafadda sidaa darteed waxaan doonaynaa bal in haddii Ilaahay raahdo aan kaga tashanno qorshayaasha degmada hor yaalla maalintii ugu horeysay maadaama ay tahayna ajandaheenu sida uu kala horeeyo ayaynu qaadaa dhigi doonaa haddii Ilaahay raahdo waxaan isku dayi doonaa in xog aan ka helno agaasimayaasha oo ay warbixin golaha siiyaan wada tashina aan la sameeyno bulshada waaxeega kala duwan afarta xaafadood ka soo qayb galay haddii Ilaahay raahdo kala fadhigeennina wuu inoo furan yahay. waxaan doonaynaa inaan ajandaha ku soconno dhowr qaybood baynu kala qaadi doonaa inta ka horeysa ilaa 11 waxaan doonaynaa in agaasimayaasha warbixintooda ay nasiyaan bulshaduna ay ka qayb qaadato wixii ay ku darsanayaan sidii loo horumarin lahaa degmada qorshaheega. intaa wixii ka dambeeyana golaha deegaanka isku xari doona muddo 3 cisho ah halkan la wada fadhiyo doona haddii Ilaahay raahdo. waxaan doonaynaa inay ka soo baxaan arrimihii aan ugu talagalnay inaan bulshada u soo bandhigno kulley maalintu dhamaadaan soo bandhigi doonaa laakiin maanta waxaan ugu talagalnay kala fadhigii labaad inuu noo furmo maalintiisii koowaad waxaan uu inoo furan yahay kala fadhigaasi haddii Ilaahay raahdo. kala fadhigan 3 cisho u socon doona golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa ah mid ay bulshadu si weyn ugu dhagtaagayaan iyagoo la filayo inay ka soo baxaan qodobo kala duwan oo markaasi bulshada iyo degmada Boorama ba horumar ballaaran gaarsiin doona. Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbere warka telefishinka Sahan caasimada gobolka Awdal ee Boorama.